Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidada uu leeyahay jimicsiga. Faa'iidada uu leeyahay jimicsiga ma ahin waxyaabo badan oo halkan lagu soo koobi karo. Haddaba aan ka hadalno faa'iidada uu leeyahay jimicsiga. Mar wax laga weydiiyey nin u dhashay waddanka Mareykanka wuxuu yidhi sida tan. Clinic anesthesiologist and performance expert, Dr. Michael Joyner. Welcome back to the program, Dr. Joyner. Good to see you, Tom. Good to see you, Tracy. So I guess we don't need to convince you about the benefits of exercise. Right. Tom, if you look at really every organ system in the body, starting with the brain, the blood vessels to the brain, the heart, the lungs, the immune system, your Waxa uu yidhi meel kasta oo jirka ka mid ah laga soo bilaabo maskaxda ilaa iyo xididada dhan waa u fiican yahay. Waa muhiim inaad mar kasta aad samaysid exercise. Haddaba qof kasta oo jimicsi sameeya waxay u tahay faa'iido weyn. Jimicsiga faa'iidooyin kale ayuu leeyahay. Qofka marka uu qabo sonkor kadibna sokorta dhakhtarku ku yiraahdo mar kasta waa inaad jimicsi samaysaa. Haddaba goormee ayaa jimicsi samaynaysaa? Waxaa lagaa doonayaa in aad maalintii samaysid 30 daqiiqo ilaa iyo 75 daqiiqo jimicsiga. Xasuusnow, dhakhtarka mar kasta wuxuu kula talshaa haweeneyda uurka leh inay xitaa socoto oo aysan fadhiisanin marka adiga xaggee joogtaa. Qofka buuran marka uu sameeyo jimicsi caloosha way ka dhacaysaa, weydka wuu ka dhacayaa. Marka qofkaas wuxuu u ekaanayaa qof dhuuban oo jirkiisa dhisan yahay. Dunidan aan maanta aad joogno sida aan wada ognahay lama jeclo qof buuran. Waxaa la jecel yahay qof caata ama dhuuban. Haddaba maxay tahay farqiga u dhaxeeyo qofka buuran iyo qofka caata ama dhuuban? Waa iska caddahay taas. Sidaad og tahaybu qofka buuran ma soco karo badanaa, wadna xanuun ayuu qaadaa iyo cudurro kale. Sida inuu cuntada iska yareeyo qofka waxay u horseedaysaa inuu noqdo qof adag haddana hawsha ka soo bixi kara. Sidaan ognahay jimicsiga dhiigkarka cudurro aad iyo aad u badan oo halkan lagu soo koobi karin ayuu daawo u yahay. Marka waxaan nigula talinayaa mar kasta in aad samaysid jimicsi joogto ah taasoo ku jirto caafimaadkaaga. Raashinka waa inaad cuntaa mid xisaab ku jirto. Waa inaad cuntaa raashin aan lahayn saliid badan. Raashin caafimaad darra iska ilaali. Fadlan mar kasta samee jimicsiga. Aqayaarta waa in salaaman dhammaan. Waa anigu Maxamed oo idin soo jeedinaya barnaamijkan. Waana ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan haddii aad ka heshay